naag yahay waxaa damacday iyo dunida xaalkeedu waa laba dudoo kala fogaan dooyisu lahayne dulligaad la joogtiyo sidii dahab ulaacaaga doqaniimo hadalkaaga iyo duqiska yeelkayga waa dabahan gool iyo garkoo durufba meel yaalle naahoy dandaan lama rujo maqal dabuubtayda naahoy digniin baa ka timi dabaqi naareed naahoy salaadan u dadaal dunidan u fiirso naahoy martidu yay dib jirin timid dureedkeenna naahoy markay duraha tahay dabax wankaad hayso ha yeeshee durduur uga dhig oo doobina u raaci naahoy duqaad haratayuu dabar la'aan foofin naahoy dusmaan baa jira ee dadabta cawsayso naahoy dan ha u gelin hadday duruufi kuu baanto naahoy ibliis miduu dirsaday gogasha ha u daadin naahoy dufuro waaranoo daadu faa guda ha yeeshee dib ha isaga noqdee il iyo daan xaabi midii dabada sayraamisoo socod dameeraad leh oo lugaha darandooridaa waa darxumo weyne naahoy tallaabada dekee yaan lagaa didin dhegaystayaal gabyaagii hore ee soomaaliyeed siyaabo badan ayuu maansada u adeegsan jiray mar qolada uu ka dhashay ayuu ku daafici jirayoo haddii iyaga gabay lagu soo maago isaga ayaa dood ka celin jiray mar kale wixii wax ka soo qaadi leh oo degaankiisa ka dhaca ayuu tixihiisa ku waarin jiray kuwaasoo waaga dambe noqda wax la daliishado marka taariikhda bulshada la isla soo qaado sidoo kale haweenka u dhaxa ayuu maansayahanku gabayga ku waanin jiray carruurta uu dhalay kuwa uu maantaa dhaqankooda saluugsan yahayna wuu kula talin jiray labadaas oo keliyase iskuma uu koobi jirine wuxuu kaloo gabyaagu tixihiisa ku waanin jiray qof ay xigta yihiinoo uu talaxumo ku dareemay mid ay waday noqdeenoo wax uu la jeclaan lahaa ka ilduufsan nin madaxa oo isaga oo dadka u wada taliya haddana amar ku taaglayn ama eexa ku maamula iyo guud ahaan tol dhan oo ay ugu muuqatay iyaga iyo dantoodu inay isgabsan yihiin sidaa darteed ayay waanadu kaga mid noqotay ujeeddooyinka maansada soomaalida kuwa ugu waaweyn maansayahanadii magaca dheer lahaa ee sida baahsan gabayadooda dadka ugu waanin jiray waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa ismaaciil mire wuxuu ku waaniyey laba dumara oo uu guursaday wiil uu dhalay mid uu abti u ahaa kuray uu geela ku hayay iyo qaar ka tirsanaa askartii soomaaliyeed ee u shaqayn jirtay gumaysigii ingiriiska ee jeer waqooyiga ka talin jiray wuxuu ismaaciil ahaa nin ku barbaaray daraawiish iyo dariiqadii saalixiyada ee ku adkayd shareecada iyo arrimaha diinta oo idil waxaad ku garataa xarumahooda cayaar laga tunto iyo mid loo gudatoona lagama oggolayn dumarka iyo ragga oo isdhex gala amaba isu soo dhowaadaana xaaraan bay ka ahayd darwiish ururkaa ka tirsanaan jiray oo dhaqankoodii aan ka waraystay ayaa beri iigu sheekeeyey koox daraawiisha oo derbiyada daaraha taleex midkood ku ag sheekaysanaysa ayaa waxaa hortooda ka muuqatay qof dumar ah oo meel ka yaro durugsan asi laga arki karo laafyaha tuuraysa intay la ashqaraareen ayay isweydiiyeen bal qofta cid garanaysa in yar kadibba waa la ogaaday show nin meesha wax ka fadhiyey ayaa qabayoo waa ijo markii sidaas loo gartayna ninkiibaa hadalkii ciil iyo ceeb kala soo bixi waaye wuxuu isu arkay nin ragga kale ka meeqaan hooseeya dabadeedna fiidkii ayuu reerkii tegey isaga oo haweenayda inuu furaa ay ka go'an tahay ardaagii aqalkeeda iyadoo dhiira ku culanaysa ayuu soo dul joogsaday markaas buu dhagaha ugu shubay meel iswalga ah oo intuu soo socday uu isku soo duwday wuxuu yidhi ijooy ururkii lagaa aragyo inaan ku eriyey arrini tahay saddexdii uu ku qabayna isla goobtaas ayuu ku maqashiiyey ismaaciil oo tababarkaas iyo tarbiyadaasi ay ku shishayso ayaa daraawiish la jabiyey dabadeedna isaga oo markaa 70 madaxa geliyey ayuu guursaday gabar da'yaroo dhaban lahayd dhiimana la oran jiray da'dooda ayaa kala fogeyde dagaankii uu midba ku indhadilaacsaday ayaa kala duwanaaye haddiiba odaygii iyo gabadhii waa isqoonsadeen markaas buu marba u tirin jiray dhowr gabayoo waana iyo waxu sheeg ah canaanina aanay ka marayn waxaa ka mid ahaa tixuu ku boorinayo arrimo dhowra oo waaweyn sida xusuusta aakhiro iyo inay salaada u dadaasho inay martida fadhiga uga kacdo oo jilaal kastoo ay tahay hilib iyo caana waxay hayso ay u hidiso awrka ay rarato inay dabalka la ogaato daandaansiga dumarka maaga inaysan danka yeelan
aqalkeeda inay hagaajiso oo ay gaarinimo muujiso, inay iska jirto kuwa baadiyaysan ee dumarka aanay qabin uu hungurigu ka galo aalaana habeenkii guda, iyo inay xarago ogaato oo yaan lagu caayine ay habka socodkeeda indho dheer u yeelato. wuxuu yidhi, naag yahay waxaa damacday iyo dunida xaalkeedu waa laba dudoo kale fogaan dooyisu lahayne, dulligaad la joogtiyo sidii dahab ulaacaaga, doqaniimo hadalkaaga iyo duqiska yeelkayga waa dabahan gool iyo garkoo durufba meel yaalle, naahoy dandaan lama rujo maqal dabuubtayda. naahoy digniin baa ka timi dabaqi naareed, naahoy salaadan u dadaal, dunidan u fiirso, naahoy martidu yay dib jirin timid dureedkeenna, naahoy markay duraha tahay dabax wankaad hayso, ha yeeshee durduur uga dhig oo doobina u raaci. naahoy duqaad haratayuu dabarla'aan foofin, naahoy dusmaan baa jira ee dadabta cawsayso, naahoy dan ha u gelin hadday duruufi kuu baanto. naahoy ibliis miduu dirsaday gogasha ha u daadin, naahoy dufuro waalanoo daadu faa guda ha yeeshee dib ha isaga noqdee il iyo daan xaabi. midii dabada sayraamisoo socod dameeraad leh oo lugaha darandooridaa waa darxumo weyne, naahoy tallaabada dekee yaan lagaa didine. ayaanba waxbaa soo baxa oo dadku ku daataa. bartamihii 1940 qarnigii 20aad ayaa waxaa waqooyiga ka soo baxday marar lagu magacaabi jiray maamiyad, ahaydna garbasaar jiracsan oo ay dumarku qaadan jireen, quruxna badnayd. dadkuna wixii cusub oo wirqaaya way jecel yihiin, dumarkuna waa sida la qabee kumaba sii jiraan. dhiima oo sidaan soo sheegay ahayd miyaradii Ismaaciil ayaa maradaa jeclaatay, markaas bay odagii weydiisatay inuu u gado. sida muuqatana waxaa sii jeclaysiiyey iyada oo aragtay dumarkii reer magaalka ahaa oo ku wada daatay kuna mushaaxaya. si kastaba ha ahaatee Ismaaciil wayla noqon weyday marada caynkaasa inuu afadiisa u gado, sababtana ma qarine diirka ayuu ka qaaday. marka hore wuxuu u sheegay inaan jeebkiisu marayne uu waxaysto, hase yeeshee aanu doonayn inuu maradaas oo kale u gado. sababta ugu weynina waxay ahayd iyada oo reer miyi ah iyo marada oo nugulo aan adkaysi u lahayn hawsheeda faraha badan ee dharka caynkaasa u daran. wuxuu uga digay inay ku dayato dumarka reer magaalka ah ee maamiyadda qaba, maxaa yeelay sida isaga la ahayd kuwaasi waxay doonayaan inay rag ku soo jiitaan. ugu dambaystiina wuxuu ugu caqli celiyey iyadu waa reer miyiye inay danteeda aqooto, dhaldhalaalka dhalanteedka ahna aysan xaalayn. markaas buu isaga oo haweenka reer magaalka ahna farta ku godaaya wuxuu yidhi, maamiyad casdhiimaay, haddaad maanka uga jeeshay ma marniya waxaan haysto, waan maarsanahayaaye waxaan maalin kula dhaaf ahayn maal ma siin karo. sogsogtaan rimaara u helayn maqal xerayskiiye, maqdarada markaad soo marto yay kala murxaysaaye naagaha magaaladii qabaa, waa maraan maliye waxay uga muraadayaan inay lacag ku meershaane, midikh midhikhda maxaa kaaga dana, reer miyaa tahay.